بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام walaalayaal marka ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh, ilaahaygii mar kale nagu kulmiyey annagoo khayraadka isku sheegayno. waxaanu soo haynay kitaabka la yidhaahdo riyaadu saalixiin, waxaanu maraynay juskii 3 baabkii 108 xadiiskii 9. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله رسولك إلهي وحو يري صلى الله عليه وسلم: من قرأ قفكي أخرية حرفا حرف قفكي أخرية من كتاب الله إلهي كتابك سقفكي هل حرف كأخرية فله قفك سوحو إسكاليهي حسنة حسنة أيوليهي، والحسنة حسنة دلشيغينا ب10 أمثالها. طبعا لبلاب كذا يا لغو دفنايا. لا أقول أنيغا مدها يبو الرسول كينا ألف لام ميم حرف، ألف لام ميم اسكجرت حرف مدها يبويري، ولكن ألف حرف، ألف كان هو حرف قونية، ولام حرف، لام كان هو حرف قونية، وميم حرف، ميم كان هو حرف قونية. ساس أي رسول كان رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. مرك حديث كان إمام الترمذي وحو قصقاتي باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. مرك حديث كان مرك وحن كفى إذا سننا ونو برارجنا على تلاوة القرآن الكريم. إن الأخريو قرآن كريم كأخرنتي سي أيو نو برارجنا. وحكلو حديث كان كقادنا قفك قارقة بكل حرف من كل كلمة وهي يتلوها حسنة مضاعفة. قفك قارقة oo maxaan ku quraanka akhrinayo wuxuu leeyahay xaraf kasto oo maxaan ku raada kalimad kasta xaraf kasta ku jirtay oo uu akhriyo xasanad ayuu ku leeyahay oo waliba mudaacaf ah, toban loogu dhufanayo. xadiiska tobnaad waxa waaye oo ahadiista quraanka kamida waxa kamida xadiiska tobnaad waa an ibn Abbas radiyallahu anhuma qaala wuxuu yiri qaala rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam: إن الذي كي ليس في جوفه أن كسرنين أوركيسا مثل قلبكيسا مثل حبتكيسا شيء وحق من القرآن، وحق القرآن كمل قفك عن قلبكيسا كجر وحو لمذي هاي كالبيت الخرب قرد الدمي أوكال أيو لمذي هاي. مركح رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. marka xadiiskan imaam at-Tirmidhi wuxuu ku soo qaatay kitaabkiisa baabu alladhi laysa fi jawfihi qur'aan kal bayt al-kharib ayuu ku soo qaatay. marka laysa fi jawfihi balidi qofka laabtiisa aan ku jirin, macnaha la yaxfidu min al-qur'aan shay'a, aan qur'aanka waxba ka xifdisanayn, wuxuu la mid yahay kal bayt al-kharib guri dudumay oo kale ayuu la mid yahay. qof guriga marka muxuu khaali ka yahay, wuxuu ka maran yahay khayr. guri dudumay khayr male, waxa wax degan male ka faa'iideysta, asayana saas oo kale gurigaas dudumay ayuu la mid yahay. xadiiska marka waxaan ka faa'iideysanaynaa wuxuu noo adkeynayaa xifdiga quraanka kariimka ah iyo in laga caado yeesho wada'bi fiihi, in laga caado yeesho. محايا لأن حامل القرآن مملوء بالخير ومغمور بالإحسان. حديثك مركو عن كفا إذا سينا قفك حامل القرآن قرآن حفظ سنة وحنبارسا وحا كبوحا أو كدامسا خير أيا كبوحا وحا معمور بالإحسان، إحسان وقوع عمليه هاي إحسان با كبوحا. حديثك كوبية تبنات وهو عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وحده: يقال وحا لغو دهيا لصاحب القرآن قفك قرآنك صاحبك لا وحا لغو دهيا
iqra akhri markii qiyaamaha la tago iqra akhri wartaqi kor aan leeyahay fuul kor u sii fuul darajo fuul baan leeyahay warattil kala dhigdhig qur'aankana kamaa kunta sidaad ahaan jirtay turattilu fi dunyaa adduunyada sidaad ugu kala dhigdhigi jirtay oo kale qur'aanka u kala dhigdhig maxaa yeelay fa inna mansilataka darajadaada oo aad ku leedahay darajadaadii waxay gaaraysaa cinda aakhiri aayatin taqra'uhaa aayadda ugu dambayso ay kaaga dhammaato ay darajadaadana ku eg tahay rawaahu abu daawuud waatirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun saxiixun marka xadiiskani imaamu abu daawuud wuxuu ku soo qaatay baabu istixbaabi tartiili fi lqiraa'ati ayuu ku soo qaatay wuxuu kaloo ku soo qaatay baabu aladii laysa fii jawfihi qiraa'atun kalbayt alkharibi ayuu ku soo qaatay marka xadiiskani marka waxaa la leeyahay yuqaalu lisaaxibi alqur'aani saaxiibulqur'aanka maxaa waaye qofka xaafidka waa qur'aanka xafdisan macnaha qofka qur'aanka xaafidan bacduhu qur'aanka qaarkiisa xifdiya almulaasimu litilaawatihi qur'aanka tilaawadiisii akhrintiisana laazima maca tadabburi weliba qur'aanka akhrintiisa markuu laazimayo uu la socoto tadabbur aayadihiisa liaayaatihi qur'aanka aayadihiisana uu ku tadabburayo waalcamalu biaxkaamihi qur'aanka axkaamtiisana ku camalfalaya alta'adubu biaadaabihi qur'aanka aadaabtiisana ka aadaab dhiganayo ayaa maxaan ku dhaha saaxibulqur'aan kaasaa la yidhahdaa saaxibulqur'aan tilmaamahaasuu leeyahay waa qur'aanka qofka xifdiya ama qaarkiisa xifdiya oo weliba akhrintiisa laazima mar walbana qur'aanka markuu akhrinayo ku tadabburo aayadihiisa ku camalfala axkaamtiisa aadaabta qur'aankana aadaab ka dhigta kaas ayaa saaxibulqur'aan la yidhaahdaa markaasa waxaa la leeyahay waxa waaye akhriyaa la leeyahay wartaqi qur'aanka markaad akhrinayso wartaqi baa leeyahay fuul macnaha iscad darajatu ljanna bimiqdaari maa xafidtahu waxaa la leeyahay fuul darajada jannada jaranjaradeeda sii fuul qadarka aad qur'aanka aad ka xifdisan tahay maxaan ku dhahay qur'aanka intaad aayadood ka xifdisan tahay akhri warattil ayaa leeyahay kala dhigdhig macnaha qur'aanka akhri ayaa lagu leeyahay jannada ku akhri limujaradi taladud waay adigoo macmacaansanaya akhri qur'aanka id laa takliifa walaa camala hunaaka marka qur'aanka akhri leeyahay jannada camalfal iyo takliiftii way soo dhammaatay macnaha takaaliif darteeda iyo macnaha amar la siinayo qur'aanka la sii akhrinayo oo takaaliiftii weli inay sii socoto ma ahee akhrinta qur'aanka jannada uu qofka ku akhrinayo waa bimujaradi taladud waay waa macmacaansi maxaa yeelay takliif iskalifitaan iyo camal meeshaas ma yaallo marka xadiiska marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa saaxiibulqur'aan qofka saaxiibulqur'aanka tilmaamahaasi lahaa darajaad ayuu wuxuu ku leeyahay jannada waxa waaye intuu xifdisan yahay tiradeedii intay la eg tahay ayuu darajadiisana la eg tahay asagoo maxaan ku rahdaa intaasoo dhan faa'iidaa helaayo fawaa'idda uu qur'aanka xadiiskan aan ka faa'iidaysanayna waxaa ka mid a baabka kale waxaa la yidhaha qur'aanka alxifdu cala tilaawa qur'aanka oo tilaawadiisa la xifdiyo oo la badiyo ayada oo lagu tadabburayo oo la fiirfiirinaayo ta'ammul lagu samaynayo lagu camalfalaayo xadiiska waxaa kaloo aan ka faa'iidaysanaynaa oo nagu baraarujinayaa khatmulqur'aan qur'aanka in la khatimo mar walba la soo bilaabo oo la khatimo iyo watarghiibi fii xifdi mar walbaba lasjeclaysiiyo qur'aanka xifdintiisa dadka la jeclaysiiyo in laga aadaab dhigto qur'aanka aadaabtiisa wata'adubu biaadaabi qur'aanka aadaabtiisa in laga aadaab dhigto istisdaad fi mawaadic almawdi fi hada almawdic mawduucan waxyaalaha ziyaadada ku jirta waxaa ka mid ah haddaad rabto ina wax ka sii badan fawaa'idan aan sheegnay fawaa'id ka badan haddaad rabto waxaad ula noqotaa kitaabu ladkaar kitaabkaasi ula noqo waxa waaye tibyaan oo liimaamu nawowi uu leeyahay kitaabu ladkaari watibyaani oo imaamu nawowi uu qoray fadli dheeraad haddaad rabto meeshaas ula noqo yidhi baabka 181 baabu lamri bitacahudi alqur'aani waaltaxdiiri
min tacriidihi linnisyaani. baabkani wuxuu ka hadlayaa waxaa lays amrayaa bitacahudi alqur'aani, qur'aanka in lagu faajoodo, tacahud lagu celceliyo. weliba waxaa kaloo baabkan nooga digaya wa taxdiir min tacriidihi, qur'aanka in laga jeesto, linnisyaani, halmaan dartiisana looga jeesto. xadiiska koobaad wa an abi muusa radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi tacaahaduu haada alqur'aana, tacaahaduu ku faajofaajoda oo kor taagnaada mar walbaba daa'ima haada alqur'aana, qur'aankan akhrintiisa. fawalladii, allihii ayaan ku dhaartay bu rasuulkeena ayaa dhaaranaya, fawalladii allihii ayaan ku dhaartay nafsu muxammadin, nabi muxamed nafsadiisaba biyadihi gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay, lahuwa qur'aanka ayaa ashaddu ka daran tafallutan, baxsi iyo farabaxsasho, asaga ayaa ka daran min alibili, geela fii cuqlihaa, dabarkiisa markii laga furo siduu u baxsado, waxaa ka sii daran qur'aanka fakashadiisii. muttafaqun calayhi. marka xadiiskani imaamu albukhaari wuxuu ku soo qaatay baabu istikhaari bilqur'aan, baabu istikhaari bilqur'aan ayuu ku soo qaatay. imaam muslimna baabu lamri bitacahudi alqur'aan ayuu ku soo qaatay. marka xadiiskani rasuulkeena wuxuu yidhi tacaahaduu haada alqur'aan, waxa waaye ku faajooda qur'aankani. waxaa laga wadaa wadlubu, qur'aankan raadiya, waxaafidu, qur'aankan ilaaliya calaa tilaawatihi. faajofaajoodka la sheegaya waa saas, qur'aanka raadiya oo xifdiya akhrintiisa. maxaa yeelay qur'aanka waxa waaye wuxuu ka daran yahay bal lahuwa ashaddu tafallutan buu yidhi, asagaa tafallud ah oo asagaa fakasho daran. fakasho macnaha takhallusan, inuu kaa fara baxsado, asaga ayaa daran. wuxuu ka daran yahay min alibili, geela oo fii cuqlihaa, dabarkiisa lah. cuqliga waxaa jamcu ciqaalin wa huwa xablun yushaddu bihi albaciir baa layidhahdaa. waxa waaye xadhigga ratiga lagu xidho fii wasati diraaci, dhudhunka dhexdiisana looga xidho. xariggaasi haddii laga furo ratigaasi soo u fakanaayo, waxaa ka daran qur'aanka fakashadiisa oo uu kaa baxsanayo ayaa ka daran. ha lagu celceliyo waa. marka xadiiska marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa xaafidu alqur'aan, qur'aanka oo la xifdiyo. waxaa la yidhahdaa ina tacaahuda bitilaawati maratan bacda ukhraa, waxa waaye qur'aanka oo la xifdiyo, waxa waaye tacaahud lagu sameeyo akhrintiisa maratan bacda ukhraa, marba marka ka dambeeya ayaa xadiiska laga qaadanaya. baqiya maxfuudan fii lawxati qalbihi, mar kastaba la akhriyo wuxuu qur'aanka marka wuxuu baaqi ku noqonayaa mid ku ilaalsan qalbiga, looxda qalbiga ayuu ku qormayaa. wa ilaa dahaba canhu wa nasiyahu, haddii kale qur'aanka wuu iska tegayaa, qofkana wuu halmaamayaa. liannahu asraca dhihaaba min alibili, asaga ayaa ka dhaqsi badan tegitaanka fakashada, geela fakaday asagaa ka daran. xadiiska labaad wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala, rasuulka ilaahi wuxuu yidhi inamaa mathalu saaxibi alqur'aani, qur'aanka saaxiibkiisa wuxuu la mihaal yahay ka mathali libili, geel oo kale waay. geelkaasoo almucallaqati oo lagu xidhay, geel xidhan ayuu la mid yahay qur'aanka. in caahadta calayha, haddaad ilaaliso, xarigga ku ilaaliso geelaasi, amsakahaa, geelaasi wuu haynayaa, wuu celinayaa. wa in atlaqaha, hadduu sii deeyana, dahabat, way tegaysaa oo wuu fakanaya waay. muttafaqun calayhi. marka xadiiskani imaamu albukhaari wuxuu ku soo qaatay baabu ashaddi kaana qur'aan, waxa waaye wuxuu ku soo qaatay waxa waaye qur'aanka oo aad loo diyaariyay. imaam muslim wuxuu ku soo qaatay baabu lamri bitacahudi alqur'aani wa karaahiyati qawli nasiitu aayatu kada ayuu ku soo qaatay. marka waxaa la yidhahdaa wuxuu ka daran yahay baa layidhi, geela ayuu ka daran min alibili. alibil almucallaqa waa geela la xiray oo la dabray waay, ayuu ka daran yahay haddii la furo ka fakashada. waxa waaye waayahay mamsuuka bilciqaali, geela lagu xiray, dabarka lagu xiray
oo kale waay. haddaad qabato in amsakahaa ay macnaha istamarra imsaakuhu laha, geedaasi xarigga aad ku hayso waxa waaye wuu ku ilaashamayaa. haddii aad furtana dabarka ka furtana wuu tegayaa. qur'aankan waa sidaas oo kale waay. marka xadiiska waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxaa lagu tashbiihiyey saaxibulqur'aan qofka la yidhaahdo bisaaxibil ibili, qofka geela leh iyo qofka qur'aanka xifdisan iyo qofka geela iskale ayaa laysku shabahay. waxaa la yidhahdaa in caqalaha wa xaafada calayha aminat waxa waaye tafallutaha. hadduu qur'aankaasi hadduu geeliisi dabro oo ilaashado waxa waaye inuu ka fakado wuu ka badbaadayaa. waxa waaye wa in taraka hadduu iska daayo oo dabarka ka furana daacat way dayacmaysaa neefkii, wa tacasara taxsiiluhaa sidii lagu helana way cuslaanaysaa. qur'aankana sidaas waaye. wajhu shabah waxa la yidhahdaa jiro meesha iskaga eg yihiin waxa waaye surcatu tafalluti, fakashada degdegeeda ay iskaga shabahayaan, iyo diyaaca inuu dayacmo oo inuu fakado siduu u fakanaayo kal ibili geela oo kale ayaa wajhu shabaha wax waaye surcatu tafallud waay. xadiiska baabkii 182 baabu istixbaabi taxsiini sawti bilqur'aani wa talabi alqiraa'ati man xasana asawtu wa istibaaci laha. baabkan wuxuu ka hadlayaa waxaa sunno ah sawtka qur'aanka in lagu qurxiyo, taxsiinu lisawti bilqur'aani wa talab alqiraa'ati, qiraa'ada in laga codsado, qof in laga codsano xasanu sawti ah si qur'aanka looga dhagaysto. xadiiska koobaad وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله رسولك إلهي بان كما صلى الله عليه وسلم يقول حال إليه ما أذن الله لشيء إلهي شيء ما إدمن ما أذن سدؤوا إدمي للنبي نبي صلى الله عليه وسلم حسن الصوت عدك قرحون يتغنى كل قينايو بالقراءة قرآنك أو يجهر بها ولا جهرايو متفق عليه. ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي. حال هذا ما معنى هذا محيطه أذن الله ما أذن الله معناها محل هذا أي استمع ودغيستي إلهي سو ودغيستي معناها سو ودغيستي لما أركواي استمع ومقلي إشارة إلى الرضا والقبول. وحال إشارة يا siduu ilaahay raalli igu yahay qur'aankoo cod qurxoon lagu akhriya oo qofka uu la jahraayo oo cod ku luuqaynayo cod qurxoon ku akhrinayo ayaa la ishaarayaa inuu ilaahay raalli ka yahay oona ka aqbalayo. maa adina allaahu lishayin maa adina linnabiyi waa yahay xasan asawti yataqannaa bilqur'aani yajharu bihi. marka xadiiskan imaam bukhaari wuxuu ku soo qaatay baabu man lam yataghanna bilqur'aani ayuu ku soo qaatay. imaamu muslim wuxuu ku soo qaatay baabu istixbaabi taxsiini sawti bilqur'aani ayuu ku soo qaatay. maxaa laga wadaa maa adina linnabiyi? maada horta sideedaba waa masdariya waay. luqada carabiga maada waxaa la yidhahdaa masdariya. waxa waaye waxaa la yidhahdaa al-uulaa naafiya, midda hore waa anfi waaye, nafyi waaye, ma idmin waaye. maa adina maada masdari waaye, tan ugu horaysa maada waa nafyi waaye. taqdiirkana waxa waa idnuhu waaye, fasixiisa oo istimaacuhu dhegaysigiisa waxa waaye xusnu sawtiga siduu u idmay. yataqannaa qofka uu ku luuqaynayo. nihaayada waxaa ku sugan qowluhun yajharu bihi uu la jahrayo xadiis kale waxaana lagu fasiray yataqannaa. imaamu shaafici macnaheedu wuxuu yidhi taxsiinu alqiraa'ati wa tarqiiqiha. waxaa laga wadaa taqaniga oo luuqaynta lagu luuqaynayo, qiraa'ada oo la qurxiyo iyo in la jilciyo wa tarqiiqiha. wayashhadu lahu waxaana markhaati ka noqonaya xadiiska kale oo rasuulkeena uu dhahay zayinu lqur'aana qur'aanka ku qurxiya biaswaatikum codadkiina ku qurxiya bu rasuulkeena. xadiiskaas ayaa xoojinaya. waxaa kaloo la yidhaahdaa wa kullu man rafaca sawtahu
qof kastoo codkiisa sare u qaada wa walaa'ahu wa suuratahu cinda alcarabi carabta agteeda qofkii codkiisa kor u qaada oo codkiisana qurxiya waxa waaye ghina ayaa la yidhahdaa luuqayn baa la yidhahdaa ghinaha heeska oo kale waay macnaha waxa waaye ana allaha mastamaca liaxadin ilaahay qof ma dhegaysto istimaacun ridan dhegaysasho oo raalli ka yahay ka istimaacihi siduu u dhegaysto linabiyi nebigiisa u dhegaystoy wakayruhu min ahli lqur'aani dadka ahluqur'aanka siduu ilaahay u dhegaysto wax kale u dhegaysto ma leh ahlulqur'aanka oo saalixiinta ah oo qur'aanka kala dhagdhigaya mutaqaniyan bihi ku luuqaynaya marka xadiiskaa marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala yucطi alajra alcadiim min xusni الsawti yastakhdimuhu fii tilaawati alqur'aani ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyaa ajarka weyn xusnu sawti codka qurxoon ayuu ilaahay ajar weyn dad ku siiyaa yastakhdimuhu fii tilaawati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa loo adeegsanayo codka qurxoon ayuu ajar fiican buu ilaahay ku bixiyaa waxaa kaloo xadiiskaan ka qaadanaynaa ibaaxatu taxsiini الsawti wa tariibihi bilqur'aani id lam yu'dan ila taghyiiri biziyaadati xarfin aw naqsihi xadiiska waxaan ka qaadanaynaa waxaa bannaan sawdka in la qurxiyo codka qur'aanka waxa waaye in lagu qurxiyo innahu lam yu'dan ilaa taghyiirih waxa waaye waxaa la yidhahdaa codka qur'aanka in lagu qurxiyo waxa waaye si fiican loogu akriyo inuu gaaro lama rabo qurxintina inuu takhyiir lagu sameeyo isbeddel qur'aanka lagu sameeyana lama rabo ziyaado xaraf lagu zarona lama rabo nuqsaan xarafna laga nuqsaamiyana lama rabo codkii qurxi adiga oo aan takhyiirna ku samaynaynin qur'aanka ziyaadana aadan ku daraynin xaraf iyo wax kale iyo nuqsaan inaadan samaynaynin xadiiska labaad wa an abi muusa alashcariyi radia allahu canhu abi muusa alashcariyi allaha ka raadi noqde anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay qaala lahu wuxuu ku yidhi laqad uutiita warniyaho waxaa lagu siiyey mismaaran luuqad ayaa lagu siiyey codayn ayaa lagu siiyey mismaar baa lagu siiyey muusig oo kale ah min mazaamiiri aali daawuud nabiyullaahi daawuud mazaamiirtii codkii qurxoonaa luuqadii la siiyey oo kale ayaa lagu siiyey muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin limuslimin imaamu muslim riwaayadiis waxaa ku sugan anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay qaala lahu wuxuu ku yidhi low ra'aytanii haddii aad i arki lahayd wa ana anigoo astamicu dhegaysanaya liqiraa'atika albaarixa kelmadaadii qiraa'adaadii akhrintaad akhrinaysay xalay qur'aanka saad u kala dhigdhigaysay codka ugu qurxinaysay ugu luuqaynaysay waxa waaye haddii aad arki lahayd markaan ku dhegaysanaya qiraa'adaada haddaad xalay i arki lahayd la ra'ayta amran cajiiban arrin aad u qurxoon baad arki lahayd saan kuu dhegaystay xalay rasuulkaa ku yidhi marka xadiiskan imaam bukhaari wuxuu ku soo qaatay kitaabkiisa baabu xusni sawti bilqiraa'ati ayuu ku soo qaatay imaamu muslimna wuxuu ku soo qaatay kitaabkiisa baabu istixbaabi taxsiini sawti bilqur'aani ayuu ku soo qaatay marka waxaa lagu sii buri abu muusa alashcariyi oo aad u cod qurxoonaa waxaa lagu siiyey mismaar wax la yidhahdaa lagu siiyey shabbaha nabiyu sala allahu calayhi wasalama rasuulkeena wuxuu ku shabbahay xusnu sawtihi codka qurxoona codkiisii qurxaan abu muusa codkiisii qur'aana iyo waxalaawati taqanihi xalaawadiisa macaankiisa oo uu ku qunaynay bisawti almismaari cod oo muusig oo kale ayuu ku miithaaliyey waxaa lagu siiyey laqad uutiita waxaa lagu siiyey mismaaran luuqad ayaa lagu siiyey codayn iyo maxaan ku rahdaa cod qurxoon oo taqani ayaa lagu siiyey mismaar oo ka mismaari aali daawuuda min mismaari aali daawuud reer aalu daawuud codkii qurxoonaa oo kale ayaa lagu siiyey aalu daawuud ujeeddada waxa waaye nabiyullaahi daawuud ayaa laga wadaa nafsadiisii aalkana waa mujmac waay waxaa la soo kulmiyo waay waxa waaye lianna axadan min aalihi
lam yucti min xusni sawti nabi daawuud baa laga wadaayay aalkiisii lama siinin codka qurxoon oo nabi daawuud la siiyey kama uctiya nabiyullaahi daawuud calayhi assalaam sidii loo siiyey oo kale marka rasuulkeena wuxuu yidhi low ra'aytanii buu yidhi abuu muusow haddaad i arki lahayd lowda mar walba haddaad aragto jawaabteeda waa la xadfaa waxa waaye low haddaad i arki lahayd jawaabteedii waa la xadfaa waxa waaye low maxduufun waay taqdiirkeeda marka haddii lasoo qadaro low ra'aytanii ana astamicu liqiraa'atika albaarixa haddaad i arki lahayd waxaa loo soo qadarinaa waxa waaye lasarraka daalika aad baad ugu farxi lahayd waay qiraa'adaada saan xalay ugu farxay haddaad arki lahayd adigana aad baad u farxi lahayd waay marka xadiiskani waxaan ka faa'iidaysanaynaa waxaa sunno ah taxsiinu sawti bilqur'aani codka in lagu qurxiyo qur'aanka dimnun xuduudi qawaacid tajwiid ayada oo lagu dhex jiro xuduudda qawaacidda tajwiidka ayadoo aan laga dhex baxaynin kow lianna dalika yaziidu alqur'aana xalaawatan wa tafarudan lilquluubi wa nufuudan ila alquluubi qur'aanka oo codka lagu qurxiyo ayadoo xuduudda qawaacidda tajwiidkana aan laga baxaynin waxay keenaysaa taasi waxay u sii siyaadinaysaa qur'aanka macaankiisa macaan buu u sii siyaadinayaa iyo inuu quluubta sii galo inuu quluubta u diso ayuu siyaadsanayaa ama idaa kaana fii dalika khuruujan bilqiraa'ati calaa wadcihi fahuwa xaraamun ama cod baa la qurxinaya inta la yidhaahdo oo laga baxo qur'aanka waxa waaye wadcigiisii iyo sidii loogu talagalay in laga dhex bixiyo xaaraam wuu noqonaya xadiiska saddexaad wa can baraa ibni caazibin radi allahu canhuma qaal samictu nabiya nabiga ayaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalama qara'a isagoo akhrinaya fi lcishaa'i salaada cishaha bitiini suuratu tiin wazaytuuni suuratu zaytuun ayaan ka maqlay isagoo akhrinaya famaa samictu axadan weligay qofna kama maqlin axsana ka wanaagsan sawtan minhu codka xaggiisa oo rasuulku wax kaga qurxoon muttafaqun calayhi ma arkay buri marka xadiiskani imaamu albukhaari wuxuu ku soo qaatay baabu alqiraa'ati fi lcishaa'i ayuu ku soo qaatay imaamu muslim wuxuu ku soo qaatay baabu alqiraa'ati fi lcishaa'i ayuu ku soo qaatay waxaan arkay buri asagoo rasuulku akrinaya bitiini wazaytuun macnaha qiraa'atu suura almushtamilati calayha suuradaasi waxaan kulansatay asagoo akrinaya watiini wazaytuun asagoo akrinaya waxa waaye watiini wazaytuun waa un hal suurad zaytuunna suurad lama dhaho tiina zaytuun watiini wazaytuun ayaan maqlay buri marka xadiiska marka waxaan ka faa'idaysanaynaa nabiga sala allahu alayhi wasalama qaala kaana wuxuu ahaa xasnu sawti bilqiraa'a waxa waaye codka aad buu ugu qurxoonaa rasuulka wuxuu ahaa codkiisii xasnu sawti ayuu ahaa rasuulka qur-aanka akrinaya taasi maxay daliil u tahay marka calaa ana allaha kamalahu bilmuxaasini kulliha rasuulkeena inuu ilaahay ku dhammaystiray waxa waaye maxaasin wax kasta oo wanaagsan oo dhan inuu ilaahay rasuulku ku dhammaystiray xadiiska afraad wa can abi lubaabata bashiir ibn cabdin almundiri radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man lam yataganna bilqur'aani qofka aan qur'aanka ku luuqaynin cod qur'aan ku akrinin falaysa mina annaga naga mid maaha rawaahu abu daawuud biisnaadin jayidin macnaa yataganna waxaa laga wadaa yuxsinu sawtahu codkiisa qofka aan ku qurxinin bilqur'aani marka xadiiska imaam abu daawuud wuxuu ku soo qaatay baabu istixbaabi tartiili fi lqur'aati ayuu ku soo qaatay falaysa mina buy anaga naga mid maaha laysa min ahli hadyina dadka hadyigeena ahelka u ah maaha wa ariiqatina wadadeeni ariiqadeeni qof ku socda maaha qofka qur'aanka cod qurxoon ku akrinin marka xadiiska marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa hadyiga nabiga waxaa ka mid ah waxyaalaha rasuulka hadyigiisa waxaa ka mid ah taxsiinu sawti biqiraa'ati alqur'aani in qiraa'atu alqur'aan sawdka lagu qurxiyo maxaa yeelay sawdka wanaagsani wuxuu qiraa'ada u ziyaadiyaa akhrinta wuxuu u ziyaadiyaa xasanan wa ta'hiiran wanaag iyo saamayn ayuu usii ziyaadinayaa xadiiska shanaad wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala nabiy sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi iqra' akhri cabdullahi ibni mascuudow calaya korkaya alqur'aana qur'aanka igu dul akhri faqultu waxaan ku dhahay yaa rasuula allahi
rasuulka ilaahayow aqra'u calayka qur'aanka miyaan kugu dul akhriyaa wa calayka walxaal calayka korkaagana unsila lagugu soo dejiyey qaala wuxuu yidhi innii aniga uxibu waxaan jeclahay bi rasuulka an asmacahu inaan qur'aanka ka maqlo min hayrii qofaan aniga ahayn faqara'tu calayhi rasuulka ayaa waxaan ku dul akhriyey suurata annisaa suuradda suuratunisaa lidhahda ayaan ku dul akhriyey xataa ji'tu ilaa haadihi alaaya ilaa aayadda aan soo gaaro fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida fakayfa xaalka sidee buu noqon doonaa nabi moxamedow idaa ji'naa markii aan la nimaano oo aan keenno min kulli ummatin ummad kastaba bishahiidin markhaatigeedii markii aan la imaano oo wa ji'naa bika adigana aan kula nimaadno calaa haa'ulaa'i kuwaani shahiidan adigoo markhaati ku noqonaayo qaala markuu meeshaas aan soo gaaray aayaddaasi xasbuka al'aan intaas ayaa kugu filana jooji ayuu igu dhahay buu yidhi faltafattu ilayhi rasuulka ayaan milicsaday fa idan isla kolkiiba rasuulka markaan arkayba caynaahu labadiisa indhood tadrifaani way burqanayaan way ilmaynayaan muttafaqun calayhi marka xadiiskaani sharaxiisa waxaad ka fiirisaa baabu fadli lbukaa'i min khashyati illaahi ayaan ku soo qaadanay marka xadiiskan waxaan ka faa'idaysanaynaa waxaa sunno ah in layska codsado tilaawa qur'aanka in laga codsado qof xasnu sawti ah in laga codsado in laga dhagaysto marka qofka codka qurxoon qur'aanka akhrinaya in laga dhagaysto ayadoo lagu tadabburaayo raxmata nabi xadiiska waxaa ka qaadanaynaa naxariista rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo shafaqada dhimrinta uu dhimray ummadiisii xadiiska waxaan ka qaadanaynaa at-tawaadu'u li ahli al-ilmi wal fadli wa raf'i manzilatihim waxa laga rabaa tawaadu' edeb qaadasho dadka ahlu cilmiga dadka ahlu fadliga in laga edeb qaato manziladooda iyo darajadoodana kor loo qaado hada wabillahi tawfiiq wallahu ala ma aqulu wakiil wassalamu alaykum ورحمة الله وبركاته